موضوع دور كان ينهايا وحوي هانتي قوصد وامحي مركا كابيتاليزم أما وحا لغة عربية لغة رأس مالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي اللي حيدان دمان برها بالشدة واني وضع سلامية. موضوع دور كان ينهايا وحوي هانتي قوصد وامحي مركا كابيتاليزم أما وحا لغة عربية لغة رأس مالية، يعني سوق حرطة. أوكي، intaynan موضوع bilaabin waxaan kaa codsanayaa haddaad youtube-ka ka daawanaysaa inaad subscribe saartaa kuna soo dhawaada mawduuceennii toddobaadka. Capitalism amba hantigoosadku waa maxay? Okay, anigu waxaan u hayaa qeexitaanka ugu wacan ee aan ku qeexi karayo. waxaan odhan karaa waa suuq xora. dowladdu aanay go-aamin suuqa waxa ka dhex jira oo ay bulshadu xor u tahay suuqaas lagu tartami kara ayaan anigu maxay u hayaa yacni qeexitaanka ugu fiican ee aan ka bixin kara hantigoosadku waa intaas. qolooyinkeena dambe hantigoosadku malaa uu ku cusubye يعني كلمة هانتيغوسد يعني دي هانتي يعني قفي أولية نظام كان ورما يا أنا وحى وجبي سوا كسو بلامة يا هانتي ومحي قفي معاملوي. أوكي، وعلي على مدى قارب ولي على مدى وجوين أولية هاي النظام ككابيتاليزم كوحوي إن أي دولة ومحي ay ka madax bannaan tahay go-aamada laga gaadhaya suuqa. Okay, example aad u weynna waa idinka siinaya. For example, dowladayda Somaliland waxay qaadatay nidaam ah capitalism amba hantigoosad bay qaadatay. hantigoosad ha qaadatee haddana suuqa waxa ka dhex jira uu private sectorku uu ka awoodi weyn marka suuqa loo eegaya amba aanay dowladdu kuba lahaynba wax raada suuqa. hargeysa ugu wacan oo hargeysa tusaale aad u weyn dadkii ku nool way garanayaan. private sectorka wadankani Somaliland wuxuu marayaa meel aad u fiican. xorriyadda in la tartamo suuqa lagu tartamaana halkii ugu sareysay ayay maraysaa. waayo calaamadda ugu weyn oo uu leeyahay waxa weeye inaanay dowladdu faragelin suuqa ee ay suuqa ka taliyaan maxay nimanka amba shacabka degan halkaas. suuqa shacabka ka talinaya. Okay, wuxuu leeyahay haddaba nidaamka capitalismku amba hanti goosadku wuxuu leeyahay faa'iidooyin buu leeyahay. inaad wax doorataa oo aad amba adigu aad noqotid kii wax laga iibinayay amba kii wax iibinayaba aad noqotid inaad wax doorataa waa freedom, xorriyad baad u leedahay. inaad maxay wax doorataa xorriyad baad u leedahay. Okay, dadku xaq bay u leeyihiin inay yeeshaan meel inay yeeshaan. For example, inaad shaqooyin yeelata, inaad beera yeelata, inaad yeelata sharaa'ic ka shaqeysa macdanta, sharaa'ic batrool ka shaqeysa, xor baad u tahay. Okay, waxaa jira marka shaqaale tahay suuqan xor baad tahay. ka bushaharka fiican unbaad u tegaysaa. There's mobility waxa la yidhaahdaa English ayaa suuqan ka jira. Alright, waxa weeye astaanta aadka ugu fiican oo suuqani iyo nidaamkani uu aad u fiican waxa weeye dadku intay hard working yihiin ayuunbay helaan. intaad dadaasho adigu ee aad gashato adigu ayuunbaad helin. wax dheeraadana ma helisid, wax ka hooseeyana heli maysid. Okay,
waxa weeye waxaa suuqan astaamihiisa ka mid a amba nidaamka noocana waxaa astaamihiisa ka mid a in ay jiraan tartan xora inay jiraan maxay tartan xora oo ka wax iibsanaya iyo wax ka iibinayaaba ay tartamayaan tusaale inaan idiga siiyana arrintaasi uma baahno anigu haddaan wax iibinayana aan ahay sidii aan u macaashi lahaa unban fulagood gelaya kii wax iibsanayana haddaan ahay qiimaha ugu jaban sidii aan u helayay quality-ga ugu sarreeya sidii aan u heli lahaa amba tayada ugu sarreysa ayaan ka fikiraya okay waxaa jira haddaba nidaam kasta oo yacni uu bil aadan dhigtay nimanka reer galbeedku aad baha ugu siicaan noqda nidaamkan iyo wadamada qaatay nidaamkan dee waxaa ka mid a Maraykan United States India way ka mid tahay Somalilandan aan joogaana way ka mid tahay cidda nidaamkan qaadatay kuuriyada koonfureed baa ka mid a dee waddanka Faransiiska ka mid a Japan baa ka mid a okay waxaa jira haddaba nidaam kasta uu bil aadanku dhigta waxaa jira wax yacni mirdaloolooyin ay leeyihiin nidaamkan okay nidaamkan wuxuu yidhi to be a rich and a poor is a matter of choice inaad noqota qof qaniya amba qof faqiiri oo waxa adiga aad choice garaynaysaa laakiin de inagu haddaynu islaam nahay taa ma aaminsanin waxaynu aaminsannahay in dee qofka qanigaana ilaahay u qoray qofkan faqiirkaana ilaahay sidaa u qoray laakiin nidaamkan wuxuu leeyahay ninkii dee qoray iyo raggii dee kasoo shaqaynayay intaasoo sane adduunyadan dee nidaamkan ku dhaqmay in maxay inaad qani noqota iyo inaad buur noqota waa matter of choice waa waxaad adigu dooranaysaa buu leeyahay okay waxaa jira farqi aada u ballaadhan oo u dhaxeeya dadka aqniyada ah amba dadka wax haysta ee taajiriinta ah iyo dadka fuqarada nidaamka for example tusaale yar baan intaa inaga siinaya waddanka hindiya nidaamkan buu qaatay intii sagaashanadii ka dambeysay waxaa jira xaafado ay degan yihiin dad hantiilayaala xaafado ay jiraan dadkii faqriga amba nidaamka noocan haday ku dhaqmayay ee nidaamku wax u dhimay baa jira waxaa la yidhi nin taajira kama dhex dhisan karo guri quraarada xaafad laga gaajoonayo sababto dee quraarada jebinaya iyagiibaa gaajoonayaba macnaheedu marka nidaamkan waxa u dhaxeeya dadna waa dad aada u tagay oo dee lacagtu dee ay biyo dhigatay dadna waa dad la-aba okay waxaa la yidhaahdaa bil-aadantinimada waxaa la yidhaahdaa in insaanka la tixgeliyana nidaamkan aada iyo aada iyo aada ayuu u ignore gareeyay amba uu ka gaabsadayba lifestyleka bil-aadanka amba sidanay u nool yihiin in la keergareeyo marka nidaamkan lagu dhex jiraa waa ignored waa arrin laga gaabsaday wey oo adigoo dee qaniyo xaafadna dee cuntada riyahaaba loo dhigayaaba xaafadna waxay cuntay laadayba yani tusaalaha ugu dhowayaan ka bixin karaa intaas wey okay sidii doona ayaa khayraadka lagu ciyaari karaa amba khayraadka oo dhan nin baaba gacanta u geli karta for example mining sectorka ama qeybta macdanta oo kale for example nin baa odhan kara macdanta waddanka Somaliland ku jirto dham aniga dawladda heshiis kula gelay inaan soo saara adduunyada ka iibiyo dee waa nidaamkii bay ku dhex jirtaa okay nidaamkani markaas Hargeysa ayaan ku noolahay anigu nidaamkan aad iyo aad ayuu ugu jira dee wadamadan kale ee jaarka ahna Soomaaliya uu ka jira Djibouti uu ka jira Ethiopia laakiin kama jiro Kenya waa ka jira nidaamka noocan ay markaa waa nidaam ah
ninkii dhargaya uu dharag ninkii gaajoonayana gaajo waa nidaam laga fiican yahay aniga aragtidayda islaamkuna dee wuxuu hayaa aragtiyooyin kale oo fara badan oo aanan fideogan kusoo koobi karayn laakiin nidaamkan waynu qaadanay anigu khadar nuur ismaaciil baan ahay anigaana gudbinaya videoga caynkana